waddanka India waa waddan aad u ballaaran wuxuuna leeyahay gobollo fara badan waxaana ka mid ah gobol la yiraahdo Ranthambore shalay gobolkaasi nabadiisa aad ay u fiicneed laakiin maanta ونكا هدي بتارنا بحسين انتين هادينا مسكين يالاني dhulkan xaq ayaan u leeyahay waxaan rabaa macdintiisa inaan soo saaro dadka masaakiinta dhulka inaad ka dhacdo adiga xaq uma lihid adiga ma dadkan u doodayo oo xaqooda soo saarayo bal aan aragna sidaad ku soo saari lahayd aniga waxaan ahay Bahir Hafsiin ilaa goorme aabaha xasuustiisa aad ku joogaysaa maad guursatid adiga uma malaynaynin cadowgayga inuu sidaan oo dhan u qurux badan yahay laakiin mar haddaan gacanta ku dhigo ubaxan quruxda badan leh argudashadayda way ii fududaanaysaa si ciyaartan meesha ugu socoto aan u joojiyo darteed waa inaan u helaa boqorada boqor guursado askarnimadaadu waxay noqotay mid lala dhaca sidaas darteed waxaa lagu wareejiyay Ranthambore aniga waxaan kaa codsaday inaad ii soo dirto askari qiirad leh si uu ugu hortago burcadka Bahir Hafsiin ee kaama codsan inaad ii soo dirto askari meelaha ku niikiyo bilowgiis ayaa sidaan ah si tartiib tartiib ayaad u fahmi doontaan dadkan aad difaaci rabtid Bahir Hafsiin reebkiisa ayay ku nool yihiin cunto ha ahaato biyo ha ahaato Bahir Hafsiin mar walba waxaad jeceshahay booliska inaad ku tilmaanto inaysan waxba ahayn balse booliska awoodooda maantaan ku tusinaya kaligaada maxaad qabanaysaa kaligaada ayaad tahay haa kaligaygaan hay meel walboon tagayana keligay ayaa tagahaya noociinoo kalena keligay ayaa wax ka qabanayo wariyaha magacayga waad xasuustaan saan filayo